baactaadi in laynoogu dhigo oo dadkii dib wax loogu sheego ay aniga ila habboon maalin wanaagsan dadkiina waxaad u baahantiin in laydinoo bargareeyo si haayara akademi ahaan annagu difoomalkiina waanu jecelnay si aad u ingaraysaan si faastiya markaa waa in laydin sheergareeyo si aad network u noqotaan si aad network u noqotaan future hela capacity building markaa environmentka waa inaad kiibgaraysan si aad life u heshaan barabowserkeena anfayarkiisa uu focus gareeyo ma fahamtid war waxaan ku weydiin inaad understand garaysan masajkana dadka kale u sii gudbiya si kumana thank you adigu hiibad leedahay ninkan wuxuu ku hadlayay kan baba u daran miyad la garan ninkan horta ninkani waxa weey waa runtii akademi buu ka soconsaa inoo sheegay afkoodi ku hadlaya horta dee afgaal iyo afmustu toonayna golmo hadal waru wax allaaliyo wuxuu inoo sheegay maxaad hiilahayd adigu anigu dee inaan usmiir baan u aqaana ninkan aabihiin nin wuxuu ahaa garyaqaana nin aan af soomaaliga laga jebin buu ahaa nin garta ruugga u aasto hadhulka adeer annagu dad xoola dhaqataa baanu laakiin dee waxa weeye waxaan jecel lahay si aad u ingaraysaan si faastiya difoomalkiina may hadda waxaanu ku hadlay warka sheekeeya wartiisa ninkani wuxuu u jeedaa baan malaynayaa ingiriis maaha soomaalina maaha talyaanina maaha carabina maaha annagu qolada ragga garan weyna maxaa kula taginaa وفين ما يعني قدوم يا وفين ما عدا كيسنا عدا ما كيسنا عدا لو هو هو قرنيا كم قرنيا كيسنا اوكي بروبوسر كده فاير كيسه فوكس جريا يو نو محل فاير جريا كاله بس كده تاغي هو شغال نكر وديني دقلا ما سوفتي واه كلين حوالي وحسين واه دني كيما كلين شاقي حتى بيد قرنسا حتى راها كلين بليسله horta dad yahay ilaahay degmada ku abuuray waxaan idin sheegay afkeena Soomaaligu waxa uu warta u kala baxaa la yiri may iyo maxaati may oo koonfur iyo xagaas iyay inagu maxaa tiribeen mahay waxa weeye wuxuu kaasna wuxuu kala baxaa xigasho iyo xeru dhalan ka sheegay la waa sheegay xeradaada ku dhashay xigashaduna waxay ilbaxnimadu inoo kanteen soo xigalnay xigashadu waxay leedahay eray bixin loo sameeyo oo afkeenu uu sameeyo dadkeena hor sameyn jiray waxa weeye waxay ku kala baxaan la macneeyo ismacneeyo dadkeena hore magacyada bixiyeen waxa kamid ah sabool wuxuu ka soo jeedaa tusaale ahaan qofka caydhiid qofka tijaarka aan busabadiisa oo la jir dadka xoolo dhaqatada markaas sabool buha gashaanti waxay ka soo jeedaa kayu gashay hantida gasha hanti iyadoo faraha lagu cuno ayaa fandaal la sameystay faradhaan baa leeyahay ma garatay waxa weeye dadkeenu ka sugayno in ay wax inagu taraana waa dadka ay nala developmentkiinan waxaan idin soo barabowsar gareynay in aan meel badantii ma xawayaan baynunay adiga laftaada baa dhibol kale iyo waxa sheegay yaa khatare waraad waxaan salaamo taqaana idinka ay qabteen labada indood ku dhufo ninka wuxuu ku hadlayay waan garan ma farajibaan anagu wartii waan garan ba wada maxaan qabtaa waxaan isriba niman kale day isriba waan ka daayidiyay waxaan isriba feedhaaba iyo bilo oo ku jirtay iyo soo sidana oo meel u hadlimaayeen dadkeen waana